السلام عليكم. qorraxda cunsurka ugu muhiimsan si nolosha dhulka uga sii jirto. markii la fiiriyay aqwaamtii iyo ummadihii hore, sheekooyin iyo qisooyin ay ka sameeyeen qorraxda, ayagoo qaar ka mid ay aaminsanaayeen in qorraxdu maamusho kownka tahayna ilaaha nolosha. heer ay caabudeen aqwaam badan. qur'aanka wax badan ayaa looga hadlay aqwaamta qorraxda caabuday. nebi sulaymaan markii uu shimbirkii hudhud u diray boqoraddii yemen, wuxuu soo arkay ummado qorraxda caabudayana ka mid tahay boqoraddii yemen xilligaas ee balqiis. wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi min duuni illaah. waxaan arkay ayada iyo shacabkeeda oo qorraxda u sujuudayo. sidoo kale shucuubtii inka ee laatiin ameerika iyo xadaaraddii asdeg ee meksiko ayaa ka mid ahaa xadaaradaha iyo shucuubta qorraxda caabuday. maanta waxaan wax ka ogaanaynaa qorraxdeenna aadka u quruxda badan. ku soo dhowaada mawduuceenna maanta. qorraxdu waa xidig aad u weyn. markaan leenahay waa xidig, waxaan ula jeednaa in meerayaasha iyo qorraxda loo kala qaybiyo. meerayaal dhagaxa sida dhulka, waxara xirka mariikha waxaa lagu magacaabaa intaas meerayaal dhagaxa, halka cirjiirka ama jubaytar zuxal lagu magacaabo meerayaal gaasa. qorraxdana waxay ku jirtaa bahda xidigaha. qorraxdeena dhulka waxay u jirtaa 150 milyan oo kiiloomitir. iftiinkeedana wuxuu u baahan yahay 8 daqiiqo iyo 9 ilbiriqsi si uu dhulka u soo gaaro. waxaa la og yahay in iftiinku halkii ilbiriqsi jaro 300,000 oo kiiloomitir, halka sanadkii uu jaro 9.461 trilyan kiiloomitir. waxaana lagu magacaabaa light year ama sana dawiya. waa masaafada sanadkii uu jaro iftiinka, waxaana loo adeegsadaa cabbiridda masaafooyinka waaweyn ee hawada sare. qorraxdu waa xidig aad u weyn oo holac sii daynayo. awoodda qorraxda ay sii daysa halkii ilbiriqsi haddii la kaydiyo, waxay awooddaa in dhulka uu koronto siiyo muddo dhan 100 milyan oo sano. qorraxda ama cadceedda waa naar iyo holac, mawjado madow, dabaylo holac wata ay dul yaacayaan. heerkulka dhexdeeda wuxuu gaarayaa 15 milyan oo digrii. bal isbarbardhig, markii aad shaaha karsanayso, biyaha waxay kuugu falfalaan markii heerkulkoodu gaaro 90 digrii, halka kulka qorraxdu yahay 15 milyan oo digrii. waa xudunteeda hoose, laakiin dusha kale wuxuu gaarayaa 6,000 oo digrii. ayadoo 150 milyan oo kiiloomitir noo jirto, ayaan maalmaha qorraxeedka ka cabanaa kulaylkaas aadka u daran. maxaad u malayn dusheeda iyo haddii loo sii dhowaado? qorraxda inteeda badan waxay ka samaysan tahay gaaska hidrojiinka iyo heliumka. haddii aan dhulka iyo qorraxda isbarbardhigna xajmi ahaan, waxay isu noqon kubad laaga dhigay mir aad u yar. aad iyo aad ayay dhulka oga weyn tahay, heer ay u dhiganto 1 milyan oo dhul. taasoo ka dhigan si aad u hesho xajmiga qorraxda, waxaad u baahan tahay 1 milyan oo dhul oo la isku daray. cumriga qorraxda iyo dhimashadeeda. khalqiga haddii ay noqdaan nafley ama meerayaal, xidigo iyo qorrax, waxay leeyihiin waqti ay dhammaanayaan. qorraxduna waa mid ka mid ah khalqiga ilaahay, waxayna leedahay waqti ay dhimanayso. qorraxda dhimashadeeda waxay ka dhigan tahay in nolosha dhulka iyadana istaagto. cumriga qorraxda waxaa lagu qiyaasaa hadda in ay jirto ku dhowaad 4 bilyan oo sano. waxayna maraysaa bartamaha cumrigeeda. inta ay hadda jirto oo kale in ay u hartay ayaana la qiyaasayaa. qorraxdu iftiin iyo dabaylo qorraxa ayay hawada ku sii daysaa, waxaana lagu tilmaami karaa sidii dhuxul gubanaysa oo kale oo marba marka ka dambeeya sii yaraanayso. daqiiqad kasta malaayiin tan oo hidrojiina ayay u beddeshaa helium. halkii ilbiriqsi waxa la eg 200 oo dhul ayay qorraxdu awood u beddeshaa. waa sidii shidaalka gawaarida ku socota oo kale. gubashadiisa ayaa keenaysa awoodda gaariga dhaqaajinayso, halka qorraxdu gubanayso si dhulku u helo awood dhaqaajiso matoorka nolosha. waxaa dhammaan doona shidaalka hidrojiinka xudunta hoose ee qorraxda, waxaana yaraan oo sii baabi'i unugtaas. aad ayayna u kululaan. hidrojiinka iyo heliumka ayaa isku milmi dusha xudunta qorraxda, taasoo keenayso in ay isfidiso. kadibna qorraxdu waxay gelaysaa marxalad ay weynaato sidii wax bararay oo kale, taasoo keenayso in xuduudka qorraxda soo gaaro dhulka ayadoo soo laqday waxara xirka, dayaxa iyo intii u dhaxaysay qorraxda iyo dhulka. taasoo ka dhigan
gubashada dhulka iyo soo afjaranka nolosha kadibna qorraxdu waxay noqon wax aad u yar oo dhulka la eg xajmi ahaan cilmiga allah ayaa iska leh laakiin wuxuu bani aadamka siiyey caqli ay ku qiyaasi karaan waxyaabaha qaar xitaa ayna arag intaas ayaan ku joojinaynaa badanaa dadku ma jecla mowduucu inuu aad u dheeraado ama 10 daqiiqo uu gaaro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh